wasiirka wasaaradda ciyaaraha iyo dhalinyarada ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo qayb ka ahaa wafdi ka soo qayb gashay bandhigga bugaagta caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa ee sanadka ayaa soo gaaray xarunta gobolka Saaxil ee Berbera mas'uuliyiinta gobolka iyo degmada iyo waliba madax kala duwan oo ka socotay hay'adaha lamaha dawladda ee degmada Berbera ayaa soo dhaweeyay waftigaasi halkan oo Mansour Hotel ee Berbera ayaa lagu sameeyay qada sharaf wasiirka ayaa intaas kadib nooga warramay bulshada socdaalkiisa oo ku yimi magaalada Berbera iyo guud ahaan Soomaaliland كل بربرة وحويا ورجدي جيس كأفريقيا سيجود هند مركان يجو وحرنتي دقالها سوماليلاند سيجود هند كل وحنقول الشيء ما كو كريوا يمكن مسؤول كهي وإثيوبيا أو ضلع دكتور لاين وحنقول نمت كل واسي خاصة أو إنه صاد الحسنة صابق إنه ما ركت بضع يو وحويا جوابات تاريخي هرجي لا هي بربرة صعدال كيونا وحلا حديون si kooban inaan dalxiis aan soo marno goobahaas waxa weeyaan sida cid kasto Soomaaliland ay timaado ay sameysana aanu Berbera soo booqano wasiirka telefishinka qaranka ee Soomaaliland waxa uu sidoo kale wax ka weydiiyay bal waxyaabaha ay ku soo bandhigeen bandhigga bugaagta ee caalamiga ah ee magaalada Hargeysa International Book Fair baan ka soo qayb galay anagu wafti ballaarana oo dalka Itoobiya iyo dawladda deegaanka aan kaga soconay ka soo qayb galka iyagu ma ahin markii ugu horeysay لكن مرة هو بدن وان كسر قريب قال لي لكن دور كم واحد كجد دوني دورش يهره وأنا بلانيد بحاول هالكل دق دور كانوا هو درسني ماذا وضن كمرتدا وما وحاول وضن كمرتدا كو أحسن الكسر جارك أنا ذلك إثيوبيا أيوها تاسع يا واحد كنتي إن وفدي بلارن أو دولة ديان كيو مارك دولة فدرال كإثيوبيا كقوام بأنوجها سو قريب قال له ilaalinta deegaanka iyo badbaadinta maaragtay duurjoogta iyo waxa weeyaan khayraadka dabiiciga wasaaradda beeraha ayaa qayb ka ahayd waxa weeyaan sidoo kale wasaaradda waxbarashaduna nidaamka waxbarashada si guud ahaaneed jira waxa weeyaan geeyiga Soomaaliyeed iyo maaragtay horumarka dhinaca waxbarashada laga sameyn lahaa la soo jeedinayay si guud ahaaneed dhalinyar kala duwan oo anagu waxaan hogaaminay qayb ka ah dhalinyarta buugta qorta oo waxa weeyaan ama kuwa hadda ku guda jira ama kuwa qora sidoo kale waxaanu wadnay dhalinyarada xiiseeya waxa weeyaan ama dadka wax akhriya oo qayb ka ah si maaragtay waxa sidoo kale la socday library-ga Jigjiga waxa weeyaan hadda la dhisay dhalinyaradii gacanta ku haysay oo waxa weeyaan hadda buugtan la soo bandhigay waxaan xaruntii ay isku tagi lahayn ahayd marka si guud ahaaneed waxaan ka soo jeedinay banaale kala duwan oo wasaaradaha waxa madaxweyne ku-xigeenka jaamacadda oo maanta isagoo cashirka ku jiray baan la joogay Jigjiga dhammaan waxay soo jeedinayeen topic sida gaarka u khasay marka guud ahaan waxaan soo kaga soo qayb galeen meesha ku soo bandhiganay waxay ahayd topicyada kala duwan wasiirku gabagabadii waxa uu sheegay in magaalada Berbera ay ka mid tahay magaalooyinka mustaqbalkoodu iifayo ee ku yaala wadamada Geeska Afrika isla markaasina ay dawladda Itoobiya iyo dawladda Soomaaliduba ay ku hamiyeen sidii ay kaalin weyn uga qaadan lahaayeen kobaca dhaqaale ee dekada magaalada Berbera oo iyadoo ah dekada kaliya ee ganacsiga Itoobiya uu maro isla markaasina ay isugu dhow yihiin dekada ku yaala wadamada Geeska Afrika waxana uu tilmaamay inuu ku faraxsan yahay socdaalkan uu ku yimi Berbera iyo guud ahaan Soomaaliland مختار عبد الرحمن محمود تلفزيون كقرن كاس ماليلاند بربرة